madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo duhurnimadii maanta ka soo degay magaalada Garowe ayaa socdaalkiisa waxa ku weeliyay wasiiro iyo xildhibaano waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha Garowe oo dhawaan dhismihiisa u dhamaaday dadweynaha Garowe ayaa isugu soo baxay wadooyinka si ay madaxweynaha u soo dhaweeyaan waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxda Puntland iyo qaybaha bulshada madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yihiin imaatinka madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho noogu yimid madaxweyne ku soo dhawow Puntland oo adigana ku jecel Soomaalnimada jecel ku soo dhawow dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dowladnimada ka jirta aad aragto la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga dowladnimada diyaar u ah inay dhageystaan ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya geedi socodka nabadda Soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo dowladnimo hagaagsan nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo geerideeda diyaar oo inay ka qayb qaataan madaxweynuhu nala joogayaa muddo dhowr bari ah arki doona dalka iyo nabadda ka jirta iyo nidaamka dowladnimo ka jirana marka madaxweyne ku soo dhawow Puntland madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta uu yimaado Garowe isagoo horay u baaqday dhowr jeer waxaan maanta runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan socdaal ku joogo magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo madaxweyne adiga iyo dowladdaada sida sharaf leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga xaqiiqatan laba jeer hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed maanta si aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay intaasoo qof oo reer Puntland reer Garowe ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidka taagnaadaan oo calama qoyan ay nagu soo dhaweeyaan aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa aad iyo aadna ugu faraxsanahay madaxweynaha ayaa sheegay in socdaalkiisan uu qayb ka yahay mid uu ku mari doono meelo badan halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta kow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta waxaan jeclahay inaan tago dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo xuqaasha salaadiinta dadka maxaan ku rahdaa aqoon-yahanada civil society-ga jaamacadaha ardayda dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha Allahna wax badan yaan isweydaarsan hadii la yiraahdo waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii waa soo daahay reer Garowe reer Puntland talahaadaan waa soo daahnay waxaan u soo daahnay wax kale ma ahayn duruuf shaqo awgeed insha Allahna waa ku soo noqonayna aniga iyo dowladda federaalka insha Allah hadii la yiraahdo waa mahadsantihiin madaxweynaha federaalka ayaa socdaalkiisa noqonaya kiisii ugu horeeyay uu ku yimaado Puntland tan intii la doortay iyo waliba ka hor waqtigii uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana inta uu joogo Puntland uu tagi doonaa magaalooyin badan inkastoo aan hadda wali la shaacin magaalooyinka ay noqon doonaan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe